jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray caasimadda dalka Talyaaniga ee Roma isagoo halkaasi la filayo inuu kaga qayb galo shirka Talyaaniga iyo Afrika. Gudoomiyaha golaha shacabka ayaa daahfuray shir sanadeedkii lixaad ee garsoorka dalka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa asagana Muqdisho ka furay mashruuc ay hirgelinayso boqortooyada dalka Sacuudiga. Israa'iil ayaa ku boorisay dalal badan in ay jiraan taageerada dhaqaale ay siiso xafiiska qaramada midoobay ee ka howlgala marinka Gaza. Ofitsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ayaa gaaray caasimadda dalka Talyaaniga ee Roma isagoo halkaasi kaga qayb geli doona shirweynaha dowladda Talyaaniga iyo waliba qaaradda Afrika. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Roma ee dalka Talyaaniga halkaas oo kaga qayb geli doono madasha Talyaaniga iyo Afrika oo shir muhiim ah oo isugu imaanayaan madax kala duwan ee ka kala socota Afrika iyo Yurub. shirkan waxa uu madaxweynaha ka jeedin doonaa khudbad diiradda ku saarayo iskaashiga dhaqaale, fududeynta isu socodka iyo arrimaha amniga. sidoo kalena waxa uu soo bandhigi doonaa muhiimadda xasiloonida gobolka, ixtiraamka mabaadi'da madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalalka, isagoo si gaarana u dul istaagi doono xadgudubka ka dhanka madax bannaanida Soomaaliya ee dhowaan Itoobiya ay ku soo dhiiratay. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa iftiimin doona dadaalka aan kala joogsiga lahayn ee Soomaaliya ugu jirto la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo dib-u-dhiska ciidamada. madaxweynaha ayaa shirka inta uu socdo wuxuu kulamo laba geesooda la qaadan doonaa madax iyo mas'uuliyiin kala duwan. mudane Asil Assontene madaxweynaha dalka Comoros ahna gudoomiyaha midowga Afrika iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka mid ah dadka uu madaxweynaha halkaasi kula kulmay. kusumaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa Muqdisho ka daahfuray shirkii sanadlaha ahaa ee lixaad ee garsoorka. Cabdullaahi Maxamed Amiin Qorshe ayaa inoo haya faafahinta warkaan. shirka lixaad ee garsoorka dalka oo uu furay kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe ayaa waxaa looga hadlay ciribtirka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sidoo kale dowlad wanaagga. gudoomiyaha maxkamadda sare dalka, xeelaliyaha guud ee qaranka, wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk Soomaaliya, taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed, gudoomiyaasha maxkamadaha sare iyo xeelaliyaasha guud ee dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe, garyaqaanka guud ee dalka iyo sidoo kale marti sharaf kale ayaa ka qayb galay kulankani. waxaana diiradda lagu saaray arrimaha hortabinta u leh hay-adaha garsoorka dalka ee sanadkan 2024 bilowga ah. sidoo kale waxaa la falanqeeyay qorshayaasha u baahan in degdeg loo wajaho iyo sidoo kale in la dhaqaajiyo shaqooyinka garsoorka ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. waxaa sidoo kale waxyaabaha la iska weydiiyay ka mid ahaa caqabadaha la soo gudboonaaday shaqooyinkii sanadkii tagay ee lagu ballamay in la qabto. xeelaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay waxa uu qorsheysan sanadkan garsoorka dalka. number 1 garsoorka waxa uu qorsheysan tayeynta iyo kordhinta aqoonta iyo khibradaha howlwadeennada garsoorka oo la xoojinayo oo uu xoojintaas uu ka shaqeynayo macadka tababar garsoorka. way u qorsheysan yihiin tababaro aad u kala duwan oo u adeegaya ajandahaas. number 2 la dagaalanta iyo yareynta dambiyada naafeeya dowladnimada sida musuqmaasuqa iyo dambiyada abaabulan oo uu garsoorku hadda aan tilmaamay sanadkan inay maxkamadeynayo burcadbadeed horey aanan Soomaaliya gudaheeda loogu maxkamadeyn. number 3 sare u qaadida xiriirka dadweynaha iyo wacyigelinta bulshada garsoorka oo aad dareemi kartaan xafiisyada
dadweynaha la xiriiray ee garsoorka inuu wax weyn oo isbeddela ka jiro in la kordhiyo laga sii shaqeeyo xafiisyadaas baa u qorsheysan garsoorka sanadka. number 4 waxaa u qorsheysan garsoorka tayeynta khibradaha iyo aqoonta hay-adaha dambi baarista oo garsoorku qeyb weyn uu ku leeyahay tayeyntooda. xasan yuusuf nuur gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland oo ku hadlayay magaca mas'uuliyiinta hay-adaha garsoorka ee dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la xakameeyo hubka si loo gaaro cadaaladda. xukunkii qofkii aad ku fulinaysay wuxuu asaguna haystaa hub la mid ah kan aad leedahay wax fuli hadduusan kaba sarreynba marka ka hub badan sidee marka wax loo fulinayaa arrintaasna waxaa loo baahanyay sidii loogu howlgeli lahaa oo hubku uu ku soo ururo gacanta hay-adda wax fulinaysa oo keliya. wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk Soomaaliya Xasan Macalin ayaa sheegay in sanadkan golaha shacabka u horyaallo qorshaha hanaanka federaaleynta dastuurka dalka. garsoorka oo dhamaystirma oo hay-adihii golihii adeeg garsoorka ama golihii sare adeega garsoorka inuu dhismo waxay nooga xiran tahay dastuurka oo noo dhamaystirma. hanaanka cusub ee federaaleynta garsoorka soo jeedinteesii nasiib wanaag markii ugu horreysayna sanadkan wuxuu horyaallaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya. marka dhammaanteen dastuurkii iyo garsoorkii isku xiran in aad saas u ogaano waaye. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan Baasha Yuusuf Axmed ayaa xusay in garsoorka uu muhiim u yahay nolosha ummadda iyo dowladnimadeena. marka insha Allah taala waxaan rajaynayaa dhammaanteen inaynu ka wada shaqeyno dalka kan Soomaaliyeed sidii aynu ugu yegleeri lahayn garsoor u qalma oo ka shaqeeya badbaadiisa. marka ay siyaasaddu qalloocatay siyaasiyiintu isqabsadaan badbaadada dalku meesha ay ku jirtaa waxa weeye waa garsoorka. meeshii garsoor fiican leh waa badbaadaa marka siyaasadda la isku qabsado. meeshii aan garsoor fiican lahayna waa burburtaa waana tay nagu dhacday ee na burburisay ee aynu u baabaanay. marka dadka maanta jooga aynu inteena halkan fadhidaa ka mid nahay oo beri wada tegi doona ama waa la dhiman ama xilkaa laga tegi da' kale iyo ubadkeena iman doona. kuwaas waxaan u baahannahay inteena maanta xilku saaran yahay inaynu uga tagno dowladnimo asal uu yahay garsoor madax bannaan. kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa ku bogaadiyay dadaalka ay wadaan hay-adaha garsoorka dalka isagoo xusay in golaha ay bilaabayaan dhamaystirka dastuurka dalka. mudane marwooyin madaxda sharafta leh waxaan idin leeyahay tallaabo fiican aad bilowdeen ma dhamaystirna garsoorka dhamaystirkaas waa lagu wada dadaali doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. dalkeen isbedela ka bilaawday isbedelkaas sanadkan waad ogtihiin hay-adaha hay-ad kasta waajib gaadhan waa saaran yihiin qaarna waa isla leeyihiin. maalanba hay-adda hadda maataray baarlamaanka horey dowladihii had ugu dambeeyay oo dhan xukuumadahooda waxay soo gudbin jireen shuruucda muhiimka ah ee dalku waxaa naban yahay in la fuliyo. xukuumadaha waa soo gudbin jireen xukuumad kasta ilaa baarlamaankii sagaalaad laga soo bilaabo intii kumeel gaarnimada laga baxay xukuumadaha waa keeni jireen. baarlamaanka dhaqaajin waayey shuruucdaas muhiimka ahaa oo qaarkood aad culeys badan maaragtay yani laga dareemayay. baarlamaankan hadda jir wuxuu ku dhiiriday arrimahaas in maaragtay ansaxiyo u meel mariyo. shirkan ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa cilmi baarisyo kala duwan oo ka hadlaya maamul wanaagga, ilaalinta madax bannaanida hay-adaha garsoorka dalka iyo hanaanka baarista dambiyada. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta daahfuray mashruuc ay dalka ka hirgelinayso boqortooyada Sacuudi Arabiya. Nasra Bashiir Cali ayaa inoo haysa faahfaahinta warkan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta daahfuray mashaariic horumarineed
oo ay dalka ka hirgelinayso xarunta boqor Salmaan ee howlaha gargaarka iyo saafalka ee boqortooyada Sacuudi Carabiya. mashaariicdan horumarineed ee maanta la daafray ayaa lagu horumarinayaa adeegyada waxbarashada, biyaha, caafimaadka iyo gargaarka, kuwaasoo ay ku baxayso lacag gaaraysa 40 milyan oo dollarka Mareykanka ah. la taliyaha boqorka Sacuudi Carabiya ahna kormeeraha guud ee xarunta boqor Salmaan ee gargaarka iyo howlaha samafalka Dr. Cabdalla Cabdulcasiis Al-Raabic ayaa sheegay in boqortooyada Sacuudi Carabiya ay ka go'an tahay garab istaagga shacabka Soomaaliyeed ayna u rajaynayso wanaag badan. أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيظل حريصا على مواصلة دعمه الإنساني للشعب الصومالي الشقيق. وختاما أتقدم لكم جميعا بجزيل الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في بلدنا الثاني الصومال، سائلا المولى العلي القدير لجمهورية الصومال وشعبها الوفي التقدم والازدهار والأمن والأمان. رئيس الوزراء حمزة عبد البر ayaa dowladda Sacuudi Carabiya uga mahad celiyay sida ay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed u garab taagan tahay mashaariicdan maanta la daafurana ay qayb ka tahay qorshaha xukuumadda dan qaran ee horumarinta adeegyada bulshada. أود بادئ بدء أن أرحب بجميع المشاركين في هذا الحفل المبارك، متمنيا للوفد القادم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة التعاون الإسلامي مقاما طيبا في بلدهم الثاني الصومال. أيها الحفل الكريم، إن المملكة العربية السعودية بتاريخها العريق وقيادتها الحكيمة تحظى بمكانة مرموقة على المستوى العربي والإسلامي والعالمي، فقد أثبتت المملكة دورها البارز في دعم القضايا العربية والإسلامية، ولعبت دورا مهما في تحقيق السلام والأمن على مستوى العالم. dowladda Soomaaliya iyo boqortooyada Sacuudi Carabiya isla maanta kala wareegtay agab isugu jira kuwa caafimaad iyo waxbarasho, kuwaasoo qayb ka ah mashaariic horumarineed ee ay maanta kala saxdeen xukuumadda dan qaran iyo boqortooyada Sacuudi Carabiya. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali Cabdi Cali Shiino ayaa ugu baaqay taageerayaasha labada xul ee Galmudug iyo Hirshabeelle in si deganaan ah ay u fiirsadaan ciyaarta dhex mari doonta labadaas xul. Gudoomiyaha ayaa sheegay in cid walbaba oo ka qayb galaysa ciyaarta in ay muhiim ama mas'uuliyad gaar ah ay ka saaran tahay nidaamka ciyaarta. maruu warbaahinta qaranka la hadlayay gudoomiye Cali Shiina ayaa wuxuu sheegay sida tan: gobolada ururada saxaafadda ciidanka amniga gudoomiyaha degmada Wardhigley dhammaantiin galab wanaagsan. taliyaasha amniga waa sheegay, wasiirka amniga dowladda Hirshabeelle, saxaafadda galab wanaagsan. biri haddii ilaahay yiraahdo ay bishu tahay 29 Janaayo 2024 waxaa dhacaysa ciyaarta kama dambaysta finalka ahay. waxaana wada ciyaari doona haddii alla idmo Hirshabeelle iyo Galmudug. dhammaan taageerayaasha ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay ciyaar qurux badan ay fiirsadaan, nidaamkana ay dhowraan. haddii alla idmo waa kama dambays, waxaa jiri doona abaalmarino waaweyn ay ugu horeeyaan taageerayaasha ugu fiican, kooxda ugu fiican, ciyaartooyga ugu fiican. waxaan rajaynaynaa marka in taageerayaashu ay kooxdaha codkooda ku taageeraan, laakiin wax rabshada ayna samaynin. sida arkayseen dhammaan adduunyada dhan waa laga fiirsanayaa. magaaladeena Muqdisho iyo waddankeennaba si fiican u koray kubadda cagta, waa artay heerkay joogto. in adduunka oo dhan laga wax ka qorayaan, oo madaxweynaha ururka kubadda cagta adduunka FIFA uu soo qaatay ciyaarta oo Galmudug iyo gobolka Banaadir u dhaxaysay. waxaan rajaynaynaa inay si nabad noogu dhamaato. waxaan rajaynaynaa taageerayaashu inay ku xifaaltamaan codka, dabaaldega, laakiin hadallada xanafta leh inay iska dhaafaan. waxaan aad uga xumahay dadka youtuberka ah ama social media isticmaal qaarkood
oo ciyaartooyda qabiil ku kala sheegaya kubadda cagta waxaan rabaa inaan aad u cambaaray arrintaas kubadda cagta ma laha qabiil waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo in fair play ay isticmaalaan kooxaha qofna jinsigiisa ama midabkiisa ma lagu caayi karo kubadda cagta waxaan rajaynaynaa ciyaartooyda waa ciyaartooy in la dheelo banooni qurux badan labadii kooxoodna wayna maqlaayaan wasiiradii way joogaan wasiirka isboortiga waa jooga dhammaan tiimka wada joognaa waxaan rajaynaynaa insha allah nabad noogu dhammaato biri galab koobkana haddii ilaah yidhaahdo halkaasaan ku bixin doonaa abaalmarinadana way jiri doonaan waxaan rajaynaynaa qof kasta in ay xirfadeeda ku soo bandhigato halkaas waxaan u mahad celinayaa dadka wax ka qora kubadda cagta ama wax ka sheega oo aad iyo aad saamaynta uu tartankan lahay bannaanka soo dhigay kuwa sida fiican u shaqeeya waxaan rajaynaynaa in aan loo isticmaalin kubadda cagta siyaasad xaaraanay ka tahay waxaan rajaynaynaa in geem qurux badan uu dhaco 2020 ayaa noogu dambeysay waa aragteen garoonka sida loo imaanayo waa aragtay quruxda ka jirta waddankeena image fiican u bixiyay waxaan rajaynaynaa marka imagekaas inaan nagala hadlaynin waxaan rajaynaynaa in aan waxaan arkayn dad dhahaya hebel waa la celinaa arrintaas ma jirto annaga intaan ognahay nin kasta oo taageera kubadda cagta qiimuu ku agleeya aad iyo aadaan aan u mahadinaynaa waxaa jira taageero fara badan oo uu ka mid yahay aayarta jawaahir istaahil gabadhii maalin dhaweeday tabarkay la soo qaadanayay nashaad dadka noocaasa waa abaalmarin doonaa anaga kubad cag waaye waa fan waaye waxaa la rabaa in lagu daydo sida gaarka xiisaha ugu yeelay tartanka kubadda cagta ah ee maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ee ka soconaya magaalada muqdisho warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo aruuriyey halkaana ka soo jeedin doona maxamed cabdiraxmaan sheekh tartanka kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir sanadkan wuu ka xiiso badnaa sanadadii hore kadib markii ay fursad u heleen kumanaan taageerayaal inay soo xaadiraan garoomada iyaga oo qaab online ku jiranayay tigidhada ay ku xaadirayaan garoonka gudihiisa sidoo kale taageerayaashu waxay fursad u heleen inay galaan garoonka qaadweyn garoomadii hore ee lagu qaban jiray ciyaaraha waxaana ay tegayeen garoonka Stadium Muqdisho tuulada ciyaaraha Soomaaliya taasi oo 30 sano kadib Soomaaliya dib looga hirgeliyay ciyaarahana lagu qabtay intaana eegin sanadkan wuxuu uga duwan yahay sanadadii hore bal dib aan u milicsano ciyaarihii hore qaabka ay u dhaceen 26 Julaay 2016 waxaa fooda isdaray xulalka kala metelaya Jubbaland iyo Puntland ciyaartooda waxay ku soo dhamaatay 1-1 laakiinse ciyaarta waxaa loo baahday gool kulaad waxaana 5-3 ku badisay xulka Puntland oo koobkaas sidaas ku qaaday 22 December 2017 mar kale ayay fooda isdareen Puntland iyo Jubbaland hal iyo waxba ayay ku qaaday Jubbaland iyadoo caradii hore ka careysan ee 2016 koobkaasna waxaa laga dejiyay magaalada Kismaayo koob iyo 30 December 2020 xulalka kala metelayay Galmudug iyo gobolka Banaadir ayaa fooda isdaray 2-2 ay ku soo dhamaatay ciyaartooda laakiinse waxa loo baahday gool kulaad 3-1 ayaa waxa ku badiyay gobolka Banaadir oo ahaa martigeliyaha ciyaaraha sanadkan wuu ka duwanaa sanadadii hore garoonku ka qaadweyn garoomadii kale Stadium Muqdisho oo muddo 30 sano lagu ciyaarin ciyaar ayaa lagu martigeliyay ciyaaraha waxaana lagu jiranay ciyaaraha qaab online 29 December 2023 ayaa lagu daafuray ciyaaraha dowlad goboleedyada ciyaar u dhaxaysay Hirshabeelle iyo Galmudug ogsoonow in ay Hirshabeelle iyo Galmudug isla yimaadeen finalka ciyaaraha dowlad goboleedyada ee sanadkan waxaana ciyaari doonaan 29 bishan January 2024 iyadoo ciyaartoodu noqon doonto ciyaarta kama dambaysta ah ee dowlad goboleedyada kooxda ku guuleysata tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaa la siin doonaa $2,000 Mareykanka ah sida ku qoran xeerka tartanka labada xul midkoodna kuma guuleysan koobka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir Hirshabeelle markii ugu horeysay ayay imaanaysa finalka kama dambaysta ah halka Galmudug ay tahay markeedii labaad kooxda ku guuleysata abaarta koob la'aanta ayay ka bixi doontaa Iran oo heliyo taliyaha booliiska ee gobolkaasi ayaa kormeer shaqo ku tegay saldhigga booliiska ee degmada Buloburde oo uu ka muuqdo
burbur. Faafinta warkaasi waxaa inoo haya Khalid Ilka Case. gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowladda Hirshabelle Cabdullaahi Axmed Maalin Sufuro oo howlo shaqo u jooga degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan isla markaana uu waliye taliye xigeenka booliska gobolka Hiiraan Korneyl Muuse Cabdi Xayuuk iyo gudoomiyaha degmada Jallaqsi Nuur Maxamed Absuga Nuurere ayaa wadajir u kormeeray saldhigga booliska degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan oo ka muuqda burbur xoogan. Gudoomiye Nuurere iyo taliye xigeenka saldhigga booliska degmada Jallaqsi ayaa wadajir waxay u sheegeen in degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan aysan ka jirin dhismaha xarumo maamul iyo mid boolis codsadayna in wax laga qabto. ciidan bariisi waa joogaa daruufo adag baa iskaga shaqeeyaan mootabajaadna ma qabaan mid laba lugoodle ma qabaan baabuurna ma qabaan magacii bariiskana waa wataa baabuurta bariiskana waa la keenaa oo daa'im waa yaalin marka wax agtaadii jaalin horta ay dhooban yihiin waxaan rabnaa kusimaa taliya qaybta iyo taliya booliska Hirshabelle dhammaanba waa idin fiirin sugayn waxaan rabnaa in degmooyinka waxa ay lahaayeen inay helaan qofkii booliska u diri lahayd oo aad qofkaas soo qaba dhihi lahayd haddaba gaariba tarda hadda qofaan muxuu ku tagay noo kireemo qaadan marka Jallaqsi waa laga hurdaahay in la soo fiirshaan jeclaalaha waxa ka codsanaynaa in baahiyaashan ay naga qaadaan saldhigga duruufihiisa waxa ka muuqdo waa dudusan yahay marka ugu horeydo haddii hadda berga qof dambiilaha la keeno kriminaale meel amba lagu haayo amba lagu celi karo kuma taallo horey isuu gudoomiyaha degmada u sheegay gacan gudhigilayaalaha ka baxay waxaa ka baxay niman shabaabe oo dambiilayaal ah. taliye xigeenka qaybta booliska gobolka Hiiraan Korneyl Muuse Cabdi Xayuuk oo qayb ka ah wafdiga gudoomiyaha ee ku sugan degmada Jallaqsi ayaa geesiyaasha booliska degmada Jallaqsi uga mahad celiyay duruufaha adag ee ugu shaqeeyaan bulshada iyo qaranka Soomaaliyeed. waa ognahay booliskana duruufo ku shaqeeyo xaaladaha ku shaqeeyaan habeen madow roob gaadiid la'aan waxyaabo badan ee intaas ugu jiraan ma xabsiga oo burbursan yahay qofka lagu soo xiro oo daaqada iyo meel lagu celiyo aysan lahayn. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufuro ayaa ballan qaaday in maamulhaan ay wax ka qaban doonaan burburka ka muuqda saldhigga booliska degmada Jallaqsi isla markaana fariin si wadajir ugu diray taliska ciidamada booliska Hirshabelle iyo kan federaalka Soomaaliya oo ku codsaday in wax laga qabto. meeshan waxa ka jirta burbur saldhig malaha habsi malaha xafiisyo malaha deer wareegsan malaha masquulo iyo biyo midnaba anaguna hadda indhaheenan ku aragnaa wixii aan qaban karno waa qabanayna. waxaan rabaa marka inaan dul istaago hay'adaha NIS3 iyo TIS iyo IOM degmada Jallaqsi saldhigeedu waa maran yahay. Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse warbaahinta qaranka degmada Jallaqsi gobolka Hiiraan. gaadiidkii duulista hawada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo kormeer shaqo ku joogta maalmaha dalka Sacuudi Arabiya ayaa soo gabagabeysay. Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus ayaa warkan ka soo diray Sacuudi Arabiya. kadib markii wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka ee dalka Soomaaliya Marwa Fardowsa Ismaan Xigaal ay soo gabagabeysay booqashadii rasmiga ahayd ee maalmahan ku joogtay dalka Sacuudi Arabiya ayaa waxaa xusid mudan in wadahadalladii magaalada Riyaad ay kula yeelatay dhigeeda ee dalka Sacuudi Arabiya injineer Saalax Naasir Al Naasir loo arkay inay ahaayeen kuwa dhidibada loogu sii aasayo xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dhinac iyadoo munaasabada wadahadalladaasi ay labada wasiir si gaar ah diiradda u saareen ballaarinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada safarada muwaadiniinta iyo sidii la isu dhaafsan lahaa khibradaha duulista hawada. haddaba kulankaasi oo ku dhammaaday si is-afgarad leh ayaa waxaa wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka ee dalka Soomaaliya ee munaasabadaasi ku weheliyeen agaasimaha guud ee wasaaraddaasi mudane Bashiir Macalin Xasan oo ka mid ah wafdiga ee hogaaminaysay wasiirka iyo danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya u fadhiya dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya danjire Aweys Xaaji Yuusuf iyadoo wasiirka gaadiidka ee dalka Sacuudi Arabiya ee kulankaasi ku weheliyeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi.
haddaba marwa fardoosa cismaan cigaal ayaa waxaa kulankaasi kadib ay booqasho ku tagtay xarunta sanduuqa horumarinta dhaqaalaha ee dalka sacuudi arabiya ee magaalada riyaad halkaas uu si diiran ugu soo dhoweeyey maamulaha guud ee xaruntaasi sayid suldaan bin cabdiraxmaan al murshid haddaba kulan ay wasiiradda la yeelatay mas-uulka sare ee sanduuqaasi horumarinta ayaa waxay labada dhinac si weyn uga wada hadleen horumarinta diyaaradaha garoonada casriyeynta nidaamka ruqsadaha laysenska iyadoo lagu saleynayo tiknolojiyada casriga haddaba kulankaasi ayaa waxaa wasiirka iyo wafdigiisa ku weeliyey ku-xigeenka danjiraha soomaaliya mudane abshir warsame diirshe iyo howlwadeenada safaarada soomaaliya ee magaalada riyaad iyadoo dhanka kalena ay goobjoog ka hayeen maareeyaha waxda duulista madaxa diyaaradaha sacuudi airlines iyo madaxda shirkadaha diyaaradaha gaarka loo leeyahay ee hoos yimaada sacuudi airlines wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka dowladda federaalk ee soomaaliya marwa fardoosa cismaan cigaal ayaa waxaa intii ay joogtay magaalada riyaad ay booqasho ku tagtay safaarada soomaaliya ee magaaladaasi iyadoo ay halkaasi si diiran ugu soo dhoweeyeen danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka boqortooyada sacuudi arabiya danjire aweys xaaji yuusuf diblomaasiyiinta iyo howlwadeenada safaarada intaba cali jaamac cilmi calakuus raadiyaha telefishinka qaranka soomaaliya sacuudi arabiya shiray magaalada muqdisho ayaa baaq nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya deegaanada dhaca xuduudda u dhexeysa gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe faafaynta warkaasi waxaa inoo haysaa nicimo xasan amniga iyo xasiloonida ka jirta caasimadda muqdisho waxa ay sababtay in ganacsatada ay ku dhiiradaan maalgashiga caasimadda soomaaliya taasoo qayb ka ah isbeddelka amni iyo horumarka uu gaaray dalka cabdiraxmaan maxamed cabdulle waa maamulaha maqaayadda beach view oo ku taalla xeebta liida islamarkaana ka mid a goobaha dadweynaha caasimadda u dalxiis tagaan ayaa ka sheekeynaya isbedelada la dareemayo iyo qaybaha cusub ee xarunta lagu soo kordhiyey xaqiiqatan beach view saawdiin waa dhowr iyo 10 sano jirsatay maantana ma aha markii ugu horreysay ee la daahfurayo balse waa renovation dib u casriyeen iyo maxaan ku idhaahdaa habka casriga cusub maxaan ku idhaahdaa ganacsiga ama dhismooyinka loo habeeyo sidaa darteed renovation ayaan ku samaynay hoolkan iyo sidoo kale hoolal yaryar oo loogu talagalay meeting roomka maxaan ku idhaahdaa discussionska ama dialoga ama workshopska beach view waxaa idinku soo dhoweynaysaa gacmo furan mar labaad iyo mar saddexaad ganacsato odayaal iyo mas-uuliyiin kale oo maanta ka qayb galay munaasabadan kooban ee halkaasi ka dhacday ayaa ka hadlay horumarada dhinaca ganacsiga waxaa laga rabaa inay magaalada sidaan u maalgeliso inay xeebaha dalka sidaan u dhisto ayaan leenahay intii dhistana way ku mahadsan tahay inta kalena inay ku dayato ayaan rabnaa warka waa loo ragaa u caaboon hoteelku waa jirjiriyey waana jiriyey laakiin waxaa la casriyeeyey caalamiyaa laga dhigay ujeeddadu waxa waaye in maaragtay la ogaado meel caalamiya ee badda ku taalla oo saanoo kale lama arkin xildhibaan yuusuf xeele iyo mas-uuliyiintii kale ayaa iyagana dhankooda ku dhiirageliyey in ganacsatada soomaaliyeed ay dalkooda maalgashadaan waxaan ku boorinaynaa ganacsatadeenna ku mashquulsan inay dibadaha maalgashaan sida Kenya iyo South Africa waddankaaga ayaa u baahan inaad xeebo ka dhaadheer ayaan qabnaa kana qurxoon hool ka mid ah hoolalka xeebta liido furitaankiisa inaan qayb ka noqdo waxaan u hambalyaynayaa ganacsatadii hirgelisay hoolkan quruxda badan ee beach view ganacsatada soomaaliyeed guud ahaan waxaan leeyahay dalkiina maalgashta markii dalka ganacsigiisa iyo quruxdiisa iyo horumarkiisa laga shaqeeyo ayaa wax noqonaynaa dhammaanteena nimco xasan cali warbaahinta qaranka muqdisho ka daawanaysaana waa muuqaalbaahiyaha qaranka Israa'iil ayaa ku boorisay dalal badan oo ayagu taageera xafiiska qaramada midoobeed ee qaabilsan arrimaha Falastiin wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil
kaytis ayaa ku booriyey dalal badan sabtidii inay joojiyaan maalgelinta hay-adaha qaramada midoobeed u qaabilsan qaxootiga falastiin ee marka lasoo gaabsho loo yaqaano UNRWA urwa kadib markii lagu eedeeyey inay shaqaaluhu ay ku lug lahaayeen weerarkii 7 Oktoobar lagu qaaday Israa'iil. xiriirka urwa ay la leedahay Xamaas siinta gabaadka argagixisada iyo sii wadista xukunkeeda waa wax aan la dafiri karin ayuu yiri Mr. Kaytis qoraal uu ku soo qoray bartiisa X. dalka Mareykanka, Ingiriiska, Talyaaniga, Australia, Canada, Finland iyo waliba Holland ayaa go'aamiyey in ay hakiyaan maalgelinta urwa kadib sheegashadaasi Israa'iil Jimcihii. urwa waxay sheegtay in ay joojisay qandaraasyadii lala gelayay dhowr shaqaalaha oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen weerarka. inkasta oo Jimcihii go'aanku meel gaara ay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ku amartay Tel Aviv inay ka hortagto falalka xasuuqa ee Gaza, Israa'iilse waxay sii wadaa duulaankeedii ka dhanka ahaa gobolka xeebta halkaas oo ugu yaraan 26,257 Falastiiniyiin ah lagu dilay oo u badan dumar iyo caruur iyo 64,797 dhaawaca tan iyo Oktoobar 7 sida ay sheegeen maamulka caafimaadka ee Falastiiniyiinta. weerarada Israa'iil ayaa ka tagay ama dhibaato gaarsiiyay 85% dadka Gaza oo ka barakacay gudaha iyagoo ay jirto cunto yari ba'an, biyo nadiif ah oo aan lahayn iyo daawo la'aan, halka 60% kaabayaashii deegaanka ay waxyeello soo gaartay ama la burburiyay sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Falastiiniyiinta ee ku sugan marinka Gaza. guud ahaan warkii caalamka oo aad ka daawanayseen muuqaal baahiyaha qaranka daawadaashaan jecelnahay waa naga intaa warkan warka xiga intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.